dhul badkiisu yahay 13.7 milyan kiiloomitir square oo aan haddana cidina deganayn. Antarctica waa mid ka mid ah qaaradaha toddobada ah. Waxay dhacdaa cirifka koonfureed ee dhulka. Waa dhul uu baraf ku daboolay. Temberature-ka ayaa marka uu aad u sareeyo gaara 38 degrees centigrade, halka marka uu aad u hooseeyo ama qabow yahay uu gaaro -90 degrees centigrade. Antarctica ayaa ah dhul aan la degi karin cimilada awgeed. Dadka ku nool ayaa lagu qiyaasaa 1,000 qofood, kuwa oo aan toos u degnayn oo kolka ay cimiladu roon tahay oo kaliya soo booqda. Antarctica ayaa bid ahaan ka weyn qaaradda Yurub oo idil. Waxa kale oo ay ka weyn tahay waddanka Canada oo ah waddanka labaad ee dunida ugu weyn. Sidoo kale Australia ayay ka weyn tahay. Antarctica ma ahan dawlad madax bannaan. Waxaa sheegta kala qaybsadayna dalalka UK, Norway, Argentina, Chile, New Zealand, Australia, Faransa iyo weliba Mareykanka, kuwa oo kaliya waxa ay ka faa'iidayaan tahay macdanta dabiiciga ah sida dahabka, uranium-ka iyo saliidda oo ay Antarctica hodan ku tahay. Dawladahaas oo mid waliba xuduud u samaystay loona aqoonsaday. Antarctica waxaa laga helaa biyaha ugu saafisan dunida. Sidoo kale bini'aadamkii ugu horeeyay ee Antarctica ku dhasha ayaa ahaa Emil Markov sanadkii 1979. Antarctica ayaa diris la ah wadamada South Africa, Australia, New Zealand, Chile iyo Argentina. Antarctica waxaa soo helay markeedii ugu horeysay sahamiye Norwegian ahaa oo la oran jiray Roald Amundsen. Taariikhdu markay ahayd 14 December 1911. Adiga ay daawanaya ma jeclaan lahayd inaad mar booqato qaaradan la yaabka leh ee Antarctica?